runtii waxaynu laynooga warramay khatarta ka dhalan karta haddaynaan cuntadeena dheelitirin haddaynaan lifestyle-keena iyo habnololeedkeena wax ka bedelin khatarta ka dhalan karta iyo cudurrada ka dhalan kara iyo saamaynta ay ku yeelan karto bulshadeena imika iyo mustaqbalka runtii adduunyada xanuunada la yidhaahdo non communicable diseaseska xanuunada aan la kala qaadin ama xanuunada chronic ah ee halkan laga sheegay boqolkiiba 70 ilaa boqolkiiba 80 dadka adduunyada dhinta sanad walba waxay u dhintaan xanuunadaas non communicable diseaseska ama NCDs-ka loo yaqaano ee ay keenaan waxyaalaha ugu horeeya ee keenay ka mid lifestyle xumada iyo cunto xumada marka khatarta ay yeelan karto waynu garanaynaa runtii in aynu caafimaadkeena ilaalin weyno cuntadeena dheelitiri weyno lifestyle-keena iyo habnololeedkeenana wax ka bedeli kari weyno waxaan isleeyahay khatarta iyo dhaqaalaha inagaga baxa waa la sheegay waxyaalaha ugu muhiimsan ee qaran ahaan aynu hawshaa ku daaweyn karnaa ma aha dhakhaatiir badan aynu dhisno ma aha dawooyin dad badan aynu daweyno waa wacyiga dadka oo aynu wax ka bedelo wacyiga dadka oo wax laga bedelo mindset-ka dadka oo wax laga bedelo haddaan qofka maskaxdiisa wax laga bedelin jirkiisana waxba lagama bedeli karo caawa halkan aynu iskugu khudbadaynay qof kastaa wuu qiiroonayaa waxa iska bedel buu isleeyahay berritooda ma samaynayo laakiin marka lagu celceliyo ay idaacadaha ka baxdo social mediaha ka baxdo khadriintay daweyn kartaa waa in yaroo kooban intay iskartay cuntadooda garatay waa tobanaan boqolaal laakiin dadka aynu doonayno inaynu wax ka bedelaan waa malaayiinta Somaliland ee mi iyo magaalaba ku nool taas sida wax looga qabanayo aynu wax u gaarsiinayna waa inaynu awareness iyo wacyigelin xoog ah oo tan aynu caawa u fadhin intii halkaa laga yidhiyo ka baxda idaacadaha iyo miidiyaha oo qof kasta gaadha oo wiig kasta gaadha oo maalin kasta gaadha oo mobilkiisa ku soo dhacda taasaa wax badan ka bedeli karta bulshadeena hal-abuurkaa khadro oo aynu ballaadhino inta ay gaadhi karto iyo inta kale ee qaranku uu gaadhi karaba la wada gaadho ayaa runtii wax lagu gaadhayaa dhakhaatiirta halkan runtii mawaadiicda wanaagsan ku jirta dhakhaatiirteenu waa kuwa ugu lifestyle-ka dhakhaatiirta ugu balwad badan oo haddaad aragta dhakhaatiirteena waaweyn iyagaa ugu sigaar badan oo ugu fadhi badan isagoo dhakhtar hadda ugu wanaagsan isugu yahay marka waxaynu u baahanay inay dhakhaatiirtu iyo madaxda iyo mas-uuliyiintu ay role model noqdaan oo dadka model u noqdaan oo iyagu muxuu ahaye ay tusaale wanaagsan u noqdaan si ay bulshadaynu doonayna wax u sheegnaana ay isku beddesho khadre waanu barbar taagannahay haddaanu nahay bahda caafimaadka wixii ay nooga baahdo taageero inta awoodayada ah mid talo iyo mid muxuu ahaye waxtarba waa la barbar istaagaynaa waanay ku mahadsan tahay wax wanaagsanna way noo qabatay dhammaantiin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu